markiiska imaamu Kisaayi ayaa waxaa maanta dhamaystay xifdinta Qur'aanka Kariimka iyo qiraa'ada tiro gaadhaysa 25 arday oo iskugu jira wiilal iyo gabdho iyagoona noqonaya dufcaddii labaad ee ka baxda kana dhamaystay markiiska munaasabadani oo si qurux badan loo soo agaasimay ayaa saaka ka qabsoontay hotel Haldoor ee magaalada Boorama waxaana ay badiba kulmisay marti sharaf tiro badan oo ay kamid ahaayeen qaariga weyn Sheekh Maxamuud Sheekh Xasan Sheekh Nuuni qaari Cabdi Fataax qaar kamid ah culimada gobolka Awdal cuqaal waxgarad aqoonyahan iyo waalidiinta dhalay ardayda xafladani loo qabtay haweenweyne tiro badan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horeynba halkaasi waxa ka hadlay maamulka markiiska imaamu Kisaayi isagoona faahfaahin kooban ka bixiyay halkan waxaan ka hambalyeeynaa ardayda maanta halkan u fadhino inaan maamusno oon sharafno oon weyneyno inagoo ku weyneynayna inay kitaabkii ilaahay dhammaysteen markasku magaciisa waxa weeye markasul imaam al-Kisaayi dadka inta badan qaldaanay kaafka la hoos dhabo waa markaskii ugu horeeyay mala Kisaayi loo bixiyay intaan ogahay Kisaayina waa mid kamid ah qiraa'adka hadda la inoo akhriyay ardaydu qaateen mid kamid markasku marxalado badan buu soo maray heerar badan buu soo maray waxaan aasaasnay bilowgii 2016 yaan aasaasnay bishii May 5 meelahaas ay qiyaastii markasku wuxuu ka kooban yahay rag iyo dumar baa sida maraakiista uu caadiga laakiin markaskaygu wuxuu dheer yahay waxooga waliba qaybtan galbeedka aan deganay hadda inuu yahay markaskii ugu horeeyay ee noociisa laga furo taana waa noo sharaf ilaahay baana nakarsiiyay wax ma aha anagu aan sameeysanay ma aha ilaahay baana nakarsiiyay waa markaskii koobaad ee laga furo ee tasxiix bixiya ama qiraa'aadka bixiya qiraa'aadka iyo in dadka laga saxo nutqiga si gaar ah looga saxo dadka ijaazada loo diyaariyo inay sanad qaataan oo ay kitaabka ilaahay qaataan abtirkiisa ilaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ku tagayeen kii horeeyay way taana waxa ilaahay ugu mahadinayna way inta kadib hadalka waxa ka daba qaatay mas'uuliyiintii kala duwanaa ee kala soo qayb galay munaasabada iyaguna hambaliyo bogaadin la wadaagay dhammaan ardayda dhamaystay xifdinta Qur'aanka Kariimka iyo qiraa'ada markaad quraanka dhamaysood barato waa culumtiisa kale waa inaad si dhaxgashaa qiraa'adka waxay ka mid tahay culumta quraanka iyo tajwiidka iyo naxwi iyo sarfiga waa inaad fahamtaa tafsiirkiisa macaanidiisa waa inaad fahamtaa tawjiihiisa waa inaad fahamtaa tawjiihul qiraa'at falyafrahu faltafrahu mimma tajma'un mimma yajma'un damaa'irta khitaabka iyo ghaybka iyo iskhilaafaya jamaca iyo fardiga isku khilaafayo macaani bay dhalinaysaa marka inaad fahamto quraanka oo si fiican u dhaxgasho mutuntii culumada ay soo khulaaseeyeen inaad xifdiso si aad maaragtay daakiradaada mar walba ay ugu soo noqnoqoto macallimiintii idinku soo dadaashay oo Sheekh Mustafa ugu horeeyo oo runtii farihiisii ay ka muuqdeen ardaygii quraanka inoo akhriyay sida wanaagsan isna Allah barakeeyo waa macallimiinta ugu tayada badan leh gobolkeenan Awdal ee runtii tasxiixa iyo ijaazada hadda bixiyayo ku jira laga faa'iideysto insha Allah ta'ala Allah barakeeyo isaga iyo inta la shaqeysa oo ugu horeeyo Sheekh Muuse Imaamul Haramayn oo inala fadhiya isagana Allah barakeeyo macallimiintii kale la shaqeynaysa garanayna Allah barakeeyo u sharafto Allah ku sharfaya marka quraanka faraa ku haya dadka quraanka caawiya cidaad caawin karto lacag ha ku xidhin bari markaad qalin jebiso waan ogahay rag badan bay madrasada u soo hilaacayaan moogtahay inay furtaan oo shaqeeyaan lacag soo saaraan yaa qalbigooda ku jirta qofka danyarka u nax badar daalmeelkaasi aqoontu waa bilow wali waxaad ka baxday tii koowaad jaamacadii baynu sugayaa aqoontu way ballaaran tahay aqoontaana si wadaan ayaan uga dardaarmayaa waalidiintana waxaa leeyahay ardaydaasi waa nin hambalyaanaya waa hambaliyo lagama yaabo waqti kale inaad madrasad gasho oo fariisato tira quraankan ka bilaabaya waa shahaadad qaadatay xaflad baad ka qayb gashay waad qalin jabisay kuma noqon kartid marka inaad sii haysaan oo aad magaranaysaa aad joogtaysaan
gabagabadii gunaanadkii halkaasi waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey dhammaanba ardaydii dhammaystay xifdinta qur'aanka kariimka iyo qiraa'ada. Suxufi Cishq MM TV magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal.